waxaa magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga lagu qabtay munaasabad ballaaran oo loogu magac daray isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed iyo Turkida iyadoo xidhiidh fac weyn uu ka dhaxeeyo labada dal. Kulankan oo ay soo qabanqaabisay shirkadda Guuleed Real Estate oo qaabilsan guryaha iyo adeegyo kale waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta safaaradda Soomaaliya ee Turkiga, xildhibaano ka socday labada dal, waxgarad, ganacsato, dhakhaatiir iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horreyn waxaa ka hadlay munaasabadda maamulaha shirkadda Guuleed Farxaan Maxamed Doore iyo xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. anagoo ku hadlaya magaca shirkadda Guuleed Real Estate qaybaheeda kala duwan ee dunida ku kala yaala, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan marti gelino oo gogol u dhigno kulan ay ujeedadiisu tahay isdhexgalka iyo isfahamka walaalaha Turkiga iyo walaalaha Soomaaliyeed ee soo degay waddanka Turkiga, annagoo ka mid noqonay maalgashadayaashii ugu horreeyay ee waddanka Turkiga yimaada, qaasatan magaalada Ankara ee guryo ka iibsada ka bacdina maalgelin kale ku sameeyay. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay kulanka noocaana oo walaalaynta iyo isdhexgalka inaan sabab u noqono. xiriirka dawladda Turkiga iyo Soomaaliya, dalka Turkiga iyo Soomaaliya waa mid soo jireena 700 sano ka hor mid jiray weeye, mid ku salaysan caqiidada iyo islaamnimada weeye. dawlad ahaan labada dawladood waa isku xoogan yihiin, ciidamada Soomaaliya dhismahooda qayb weyn bay ka ciyaareen, dib u dhiska dalka qayb weyn bay ka ciyaareen. haddana intaas waxay ku sii dareen inay dadkii Soomaaliyeed dalkooda ku soo dhaweeyaan. marka cilaaqadaas xoogan hana loo ilaalisho, waa dad fiican. aad baan u mahadsantihiin. danjiraha Soomaaliya ee dalka Turkiga Jaamac Cabdullaahi Caydiid oo munaasabadda soo xidhay ayaa ka hadlay xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga iyo waxyaabaha ay Soomaalidu ku soo kordhisay dalka Turkiga. dawladda Soomaaliya xiriirka ay Turkiga la leedahay dawlad kale ay la leedahay ma jiro. waxaan kale ogahay dawladda Turkigu Afrika dawladda ay ugu dhowdahay, ugu xiriirka fiican tahay waa dawladda Soomaaliya. labada shacab waxaa ka dhaxeeya xiriir qoto dheer oo taariikhi ah, xiriir military, xiriir ganacsi, xiriir caafimaad, xiriir bulsho, xiriir walaaltinimo. dhinac kasta waa laba dawladood oo walaalo ah oo isku xidhan oo aan weligood kala foqayn. Soomaalida Turkiga timi waxay ku soo kordhisay Turkiga wax aad u fara badan oo wanaag ah. maalgelin bay keeneen, guryihii bay iibsadeen, shirkaday samaysteen. waxay soo kordhiyeen inay iskuuladii galaan oo luqadii Turkiga bartaan, Turkigiis dhex galaan. waxay kaloo soo kordhiyeen inay dadka caafimaadka Turkiga u yimaada ay aad u badan yihiin oo iyagana dhaqaale ay ku soo kordhiyeen. waxay Soomaalidu Turkida ka caawin doontaa Afrika siday u gali lahayd, ganacsigooda u qabsan lahaayeen, uga ganacsan lahaayeen, maadaama Afrika noqotay qaaradda kaliya maanta dhaqaalaha lagu tartamayo. Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Darwish, magaalada Ankara.